kulan ay isugu yimaadeen odayaasha dhaqanka mid ka mid ah beelaha dega koonfurta Soomaaliya ayaa maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. Kulankan ayaa looga hadlayay gabar ku dhimatay rasaas ka dhacday wadada hormarta isbitaalka xoogga dalka. Waxa ayna beeshaani sheegeen in lagu soo eedeeyay ciidamo ku heeb ah dilka gabadhaasi. Balse odayaasha kulanka isugu yimid ayaa eedaasi waxa ay ku tilmaameen mid waxba kama jiraan ah. ugu horreyn waxaa kulanka ka hadal jeediyay Suldaan Xasan Axmed Sabriye, Nabadoon Cabduqaadir iyo Nabadoon Iimaan Jimcaale Faarax. eedna loo soo jeedinayo annagoo ah qabiilka Mursada. qabiilka Mursada barnaamijkaas waa iska warsagay, waa wareysanay, meel walbaan la xiriirnay, qabiilka dhexdiisaan marnay, saraakiisi iyo wixii maaragtay ciidamada uga warhooyay warkaas waa raadinay. saas darteed barnaamijkaas asiga ah oo beeshaas walaalka aan nahay oo la yiraahdo Cayr ay naga tabanayeen oo nagu eedeeyeen annaga barnaamijkaas annaga xaggeena ma jiro, waa weynay maanan soo arag. walaalahayna marka waxaan u sheegaynaa gabadha dhimatay oo Cayrka waa gabadheeni, waa gabadha haddii Ilaahay kuu roon yahay ee naga dhimatay, way naga wada dhimatay, waana gabadheen, waana ka tacsiyadaynaa. Ilaahay ha u naxariisto. waxaan maqlay saxaafadda aan ka maqlay Facebook waxaan ka arkay walaalaha Cayr media ay soo dhexgeliyeen, warar ay soo dhexgeliyeen ayagoo cabanayaan gabar dhimatay ay ku eedeynayaan Mursada ay ku eedeynayaan. waxaan leenahay walaalaha Cayr ee gabadhaas nagu eedeeyay, gabadhay nagu eedeeyayaan, annaguna ma jirto, xaggeena ma jirto, Mursada xaggiisa ma jirto. walaalaheen waa isla dhalanay, dhibkuna kan kaliya ma ahan, mana ahaa doono, mana ahaa jirin, oo dhacaa waana dhici jiray. sidaas horta si ka wanaagsan oo inaan wax iswarsano sida wax xujaan ay noo sheegaan waa jeclayn, laakiin ma dhicino. social media aan ka aragnay eedda, marka walaalahay horta taasi nagama qabato, laakiin waa dhacday. waxaa kaloon rabaa inaan caddeeyo, inagu odayaasheenna halka fadhiya, akhyaarta kaloo nala joogto fadhida meesha, waxaan aragnay xildhibaankii eedda laga tabanayay. wuxuu noo sheegay arrintaas inuu isna si media ka maqlo nala mid yahay, wixii kulley baaritaan dowladeedna oo jiri doono. gabagabadii kulanka waxaa soo xiray Iimaan Maxamed Axmed Yalaxow. intaa kadib waxaan leeyahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. gabarta walaashayna ee dhimashadeeda la sheegay waa ka xunnahay, waa walaashayna, annagay dadkayna inta Allah u naxariisto. walaalahayna Cayr nabadoonnada iyo ugaaska eedaynta ka soo yeertay oo meediyaha la marsiyey waxay nolol noqotay waxaan aad ula yaabnay. aniga walaalahayna Cayr waxaa dhaxan war noo ahaa jiro, dhaqan noo ahaa jirta wixii dhibahoo la arko in si degan oo tartiiba la isugu soo sheego, marka in meediyaha war la isu marsiiyo haddana hadalla kulul ay ku jiraan oo dhimbale aad u dhacdhac ay ku jiraan, aad iyo aadaan uga xunnahay. marka waxaan leenahay walaalahayna Cayrow, annagu gabartaas dhimatay geerideeda Allah u naxariistee waxay nagu ahayd xalay, haw ahaayey ka hor ma maqal, adinka nooma soo sheegina, raadiyo meediyaad geliseen, annagana markaan isweydiina meelay ku saxantaa waa weyne, wax sixi kara waa weyne. haddaa adinka aad caddayn haysiin oo aad leedihiin annagaa caddayn u hayna in Mursada gabartaas ay ku maqan tahay, dadkii hore la iska dili jiray ka mid tahay, meel gaar aadimee. ciidanka meesha maraana ciidan dowlo waaye, ciidan Mursada lahay maahan. biliisaa ku jiray, militariyaa ku jiray, asluubaa ku jirtay, NSA ku jirtay, ciidan dowlo u diiwaan gashado ciidan dowlahay ahaayeen. marka wax gaar ah oo Mursada haleeyay oo asugu sameeyay haddaad ogtihiin idin inkiri mayna, soo dhawaada caddaynteeda keena. Cabdiraxmaan Shoodhe, Universal TV, Muqdisho.